maalin dhaweyd nin baan ka dhegaystay idaacad xayeysiis u samaynaya oo been sheegaya nin weyni inuu been sheego waa ka xaaraam waxuu ahaa ninkaasu nimaan anugu ugu wacnaa inuu xafiis dawladnimo ah oo public ah oo xafiiska Soomaaliya ugu sareeya kan ku xiga anugu aan ugu wacnaa in la geeyo shaqo dawladeed warigii hal sano u qabtay intii aan wada joognay intuu gacan la siin lahaa lugooyo mooye waxba nooma tarin dastuurkii buu nagu dayacay wixii xaq aan u lahayn buu duudsiyey dadka yagii buu kala qaybshay ismadayadii buu isku diray dawladnimadii magaca aan ku lahayn buu xumeeyey annagana talo waa naga maqli waayey maalin dhaweyd wuxuu sheegtay been inuu isagu Puntland burcadbadeedda ka sifeeyey waryaa burcadbadeedda Puntland ka sifeeyey ma Cabdiweli mise Cabdiraxmaan annagiina wuxuu nagu sheegay burcadbadeed taariikhda ay ka mid yihiin aeroboorka Boosaaso kan Garoowe waxa dalka laga qabanayo wuxuu yiraahdaa keenay bal been inta leeg iyo hafriin waan la yaabo iyo aflagaadha heerkaas wuxuu leeyahay dad baan barwaaqa geynaya weligiisna xafiis halkaas oo anu waan ku wacnaa mooyee mawtigi macallin buu ahaa jeeso wax ku dhiga waan qabaa inuu maadadaas dhaqaalaha yaqaan laakiin macallinimadiisii intuu ka tegay buu wuxuusan shaqo ku lahayn doonay wuxuu aflagaadhay Puntland wuxuu aflagaadhay meel kaga dhacay ciidankii amniga wuxuu aflagaadhay odayaasha dhaqanka wuxuu aflagaadhay beelaha Sool iyo Sanaag inta aan isku darsaday Puntland doore ka dhac ninba wuxuu ina Cabdulla Xasan baan gabayadiisa wax ka bartay oo wuxuu yiri ninka yiri waxbaan garin anoo goliya cayn jooga oo badii garacad baan gudub u weyraadin oo ragga ay ku gaardiyahayaan guudka kaga keenin marka daraawish baa ay deganay dadka lagu cadaabiyo muxuu oo been sheeg meeshaan waa loo siman yahay cid kasta oo wax isku haysa way u tartami kartaa laakiin waa inay anshaxa iyo akhlaaqta iyo aadaabta ku sugnaataa haddii kale waa la iska daba qaadanaya waxba la iska sheegi doona kuwa kale waxay yiraahdeen dawladda lagu wadaadiyo aan hadda intayada is soo sharaxnay oo anna way kan ay ka buuxaan inay yiraahdeen annagu aan wax walba qabanno annagana lagu wareejiyo maaliyadda iyo ciidanka iyo amniga iyo waxa oo ma dhaleen dawladda ka dawladdu go'ay meesha ka tagtay kuwa leh waxbaan bedelaynaa change baa loo baahan yahay change ma system baa la bedelaa ma waxun baa dib loo hagaajiyaa mise waxa la bedelaa qof macnahoodu waxaan u qaatay qof bedelaya qaarkood inay u jeedaan micna ma samayso qof waa bedeli kara laakiin mid ka sii xun baa jira waxa weeye qof kale waxbaan bedelaya waxaan ognahay dad mushaar ka qaata xamar oo la yiri rabsho ka rida Puntland oo aan doorasho u socon oo raba in meesha la isku qabsado oo lagu kala dhaqaaqo oo markaa la soo magacaabo gobernatooraha Mudug kan Nugaaleed kan Sool kan Cayn kan Buuhoodle muxuu ahaadee kan Sanaag kan Bari kan muxuu ahaay Karkaar warsaama yeelaynaa inagu sida aynu jidaynay ayaynu ku shaqaynaynaa sidaas ninkii ku tartamaya oo anshixiina ku ekaanaya oo wanaag dalka raba inuu ku soo dabaalo waa loo ogol yahay dadka meelaha kaga dhicinina karaamadiisa dilina dalkana been ka sheeginin anigu haddii inay doorto inta kale mid walba soo iska hadli doona ila tahay la suma waa xirreen wixii horumar aan dalka gaarsiinay waanu sii wadaynaa waxay laga qaldamay ama caqabadaha oo dad kale noogu wacan yahay oo meelaha qaarkood la tagaayo ay ka mid tahay shilinka Soomaaliya meesha ka baxayna markiina la soo doorto waa tashanayna anaga iyo barnaamijka iyagu go'aan baan gaari doonaa dhaqaalahaygana waa saxayna haddii ay dhacdo kolley maanta ninkii maanta madaxweyne Puntland ka noqonaya looxul maxfuudku ku qoran yahay waa la isxiijinayaa mooyo wax kale ma yahay ilaahay xaqiisa waa ka qoran
haddiise ayba dhacdoba si kastaba ahaatee inaanaan annagu ku soo bixin aanaan dooran noqon maayo oday intuu xoogaa maleeshiya urursaday waddada istaago magaalooyin kala xidha waxaan noqonayaa oday macawis iyo shaal qaato dadka ka mid ah oo talada wax ka sameeyo kolley haddii markan lay doortona oo nolol aan ku sii jirrona marka dambe ma tartami karo markaasaan noqonayaa markaa haddii markan lay doorto kan dambaan noqonaya waxaan isku taxallujin doonaa haddii ilaahay idmo wixii aan ka gaaro oo karaankayga horumarkiina anigoo aan meel dibadeed shisheeye iyo sokeeye weli shisheeye weeka ah oo aan weli maslaxadda soomaaliya garayni ka iibsan xafiis caama in laga shaqeeyo public office maaha hay-ad maaha NGO-na maaha NGO-ya waa aragtay rag ka shaqayn jiray meelay wax marinayaan waa ka warraystaan waan xafiis caama ka shaqayn meelo ka mid a soomaaliya waa ka warraystaan halakan maaha meel NGO ah anugu xafiis caama baan ku soo barbaaray shaqo ka bilaabay anigoo yar oo 20kii jira ilaa haddana intii madhaxaan ka maqnaa wax baranaya mooye waan joogay wax aniga ila mid ah yuubay gaarsiisnaan intaan ka shaqeeyay laakiin saa ugu soo barbaaray xafiis caama waa ka shaqayn kara meeshaan maaha dukaan meel laga furto iyo farmashi iyo maaha iyo shirkad muxuu ahay ganacsi midna maaha waa wax meel walba wax lugta ku leh waa xafiis caama waxaan rajaynayaa ilaahay ka rajaynayaa doorashada tan inay caam si cad oo muxuu ahay ammaana ku dhacdo si dadku raalli ka yahay ku dhacdo si nabadgelyaa ku dhacdo innagoo israacsan oo wada jira oo cadowgeenna ka guulaysanna ayaan jeclahay inay doorashadan ku dhacdo ciddii aad idinku doorataan xildhibaannada idinkaa doortay ciddii ay idinka arkaan inaad rabtaan bay dooranayaan